السلام عليكم أصحابي كسر هذا مركلة قناة كنا سون تكنولوجي ما أنت waxaan sharxi doonaa filim qiso dhab ah oo dhacday dhanka kalan ah mid naxdin ah kaas oo lagu magacaabo 127 hours ee daawo oo taxadar filimku wuxuu ku bilaabanayaa dad aad u badan oo ciyaaraya ciyaaraha noocyadooda kala duwan sida kubadda kolayga ama ciyaaro kale oo kala duwan goobtan sidoo kale waxa ku sugan Aaron Hiddleston wuxuu isku dayayaa sidoo u qabsado nolol maalmeedkiisa gaarka ah kale wuxuu u baahan lahaa maalintaas ee nolol maalmeedkiisa ku saabsan shaashadu waxa ay sheegaysaa maalin axad ah balse meesha uu ku sugan yahay waa meel mugdi ah wuxuuna weli raadinayaa midadiisa taas oo ah mid ay isticmaalaan ciidanka oo kaliya hadda wuxuu boorsidiisa ku ridanayaa xoogaa sharaab ah si uu ugu adeegsado energy ahaan intaas kadib furaha gaariga ayuu qaadanayaa wuuna baxayaa hadda gaarigiisa ayuu qaatay waxaana u daran muusig aad u dheer wuuna ku raaxaysanayaa wuxuuna aragtidiisa ku sharaxayaa sida uu u gaaro habeenkii si uu u nasto oo cabaar u seexdo intaas kadib waxa uu istaajinayaa gaarigiisa si uu u seexdo maadaama uu galay xilli habeen ah subaxdii xigtay waxaynu aragnaa inuu Aaron wadayo baaskiil wuxuuna u muuqdaa nin tamar badan haysta isagoo lama deegaanka si xawliya ugu wadaya baaskiilka haddana wuxuu ku dhacay dhagax yaala lama deegaanka dhexdiisa wax yar oo dhaawac ayaana ka soo gaaray balse asaga dhaawacaas waxba kama soo qaadin socodkiisa ayuu sii watay Aaron baaskiilkiisa ayuu ku xirtay kaamiro si uu isku duubo balse hadda wuxuu istaagay meel lama deegaanka ka mid ah si uu taageerayaashiisa daawo doona update uga dhigo Aaron inta badan waa nin kaligiis socda mana jecla safarkiisa inuu qof kale ku heliyo hadda wuxuu baakiminayaa baaskiilkiisa wuxuuna fuulayaa meel lagu magacaabo Philipton Army waana meel buur ah oo waadi ah sida badan ah waa meel saxaraha ku taala oo lama deegaan ah hadda Aaron ayaa fuulaya buurtan Aaron hadda wuxuu arkayaa laba gabdhood oo taagan meel buurta wax yar u jirta waa Kirsty iyo Megan waa laba gabdhood oo dhinsan oo aan aqoona meesha ay u socdeen iyo meesha ay ka imaadeen Aaron ayaa intaas kadib u sheegay inuu caawin karo weydiiyana meesha ay ka imaadeen iyo meesha ay u socdaan kadib markii ay u sheegeen Aaron ayaa u kaxeeyay goobtii ay rabeen nasiibuna wayna tageen meeshii ay rabeen Aaron ayaa u sheegay inuu yaqaano meeshan iyo meelo kale oo ka qurux badan haddii ay doonayaan dalxiis inuu u wadi karo waxayna ku raaceen fikradiisa oo laba gabdhood hadda way soo raaceen hadda waxaan arkaynaa Megan Kirsty iyo Aaron oo fuulaya meel ah laba buur dhexdooda haddana ah meel halis ah oo wax badan noloshooda khatar ah ka soo gaari karaan balse Aaron ayaa u sheegaya inay wax walba hagaagi doonaan Aaron ayaa intaas kadib iska soo tuuraya derbigii ciriiriga ahaa wuxuu ku dhacayaa meel balli yar ah oo buluug ah oo muuqaal naxdintiisa wata wuxuuna u heesayaa gabdhaha kale si ay waqti asaga ula qaataan Kirsty ayaa istoortay intaas kadib Megan ayaa bilaabaysa ayadana markeeda inay is soo turto Aaron wax walba bilow ilaa dhamaad wuu duubay waxayna ahayd waqti qurux badan ay ku wada qaateen meeshan buuraha hoostooda ah oo haddana xeebta ah haddana lama deegaanka ah saacado badan ayay ku ciyaarayeen biyaha ayagoo marar badan is soo tuurayay intaas kadib dhammaantood way ka soo bixeen meeshii wayna is soo raaceen waxayna bilaabeen inay iska duubaan clips intaas kadib Aaron ayaa weydiiyay marka kale ay is arki karaan waxayna u sheegeen in ay hameen dambe leeyihiin xafladaasna ay ku casumi doonaan si uu uga soo qayb galo isaga intaas kadib Aaron uu iska baxay balse gabdhihii ayaa bilaabeen inay qoslaan sababtoo ah Kirsty ayaa xoogaa jacayl ah u qaaday Aaron wuxuuna bilaabay isaga inuu iska sii fuulo buuraha wuxuuna arkay meel yar oo aad u qurux badan balse wuxuu isku dayayaa inuu meeshan quruxda badan u galo gudaha ayuuna u galay meeshii quruxda badneed intaas kadib wuxuu socdaba wuxuu arkay dhagax weyn oo yaala meel laba buurood dhexdooda ah wuxuuna isku dayayaa dhagaxa inuu fiiriyo inuu dhagax uu xadiisa kara yahay iyo inuu jilicsan yahay kadib markii uu iska fiiriyay dhagaxii weynaa dhagaxa ayuu qabsaday hoosna ayuu u dadegay si uu u sii wato socodkiisa balse nasiib xumo dhagaxii ayaa ku soo dhacay kadibna gacanta ayuu uga fadhiistay hadda waxaan arkaynaa xoogaa yar oo dhiig ah balse arrinta ugu weyn oo dhibka ah ayaa ah inuu ka saari waayay dhagaxii gacantiisa haddana meesha qof caawiso kama dhowa wuxuuna bilaabayaa inuu si walba uu ku badbaadi karo isku badbaadiyo hadba gacantiisa ayuu dhinac u riixayaa siduu iskaga qaado dhagaxan weyn ee kusoo dul dhacay hadda wuxuu isku dayayaa inuu garabkiisa ku riixo dhagaxa balse uu awoodi waayay inuu dhagaxa riixo sababtoo ah waa dhagax aad u weyn intaas kadib waxa uu bilaabay inuu si aad ah u qayliyo si asaga loo caawiyo meeshana looga saaro balse nasiib darro baaxadda goobta uu ku dhacay ayaa ah mid aad u weyn waana gooba cidna u dhoweyn wayna adag tahay inuu helo asaga qof caawiya meeshana ka saara gebi ahaanba meeshan ayuu ku go'laysan yahay waana keligiis balse wuxuu isku dayay asaga si walba uu meeshan ugu badbaadi karo dhagaxanna iskaga qaadi karo balse hadda Aaron waxa uu dibadda u soo saarayaa wax walba oo boorsidiisa ku jiray
si uu uga badbaado meeshan. wuxuuna isku dayayaa inuu isticmaalo qalabyo badan oo boorsidiisa ugu jiray sida midi yar, xarig. midida wuxuu u adeegsanayaa si uu ugu jabiyo dhagaxa, balse nasiib xumo wuu u jabi waayay dhagaxii. balse hadda Aaron nasiib xumo midida yartayd ayaa kaga dhacay meel asaga ka hooseysa oo uusan gacanta la gaarin. qori yar ayuu rabaa inuu kusoo qabto, balse ma kusoo qaban karo sababtoo ah meesha ay uga dhacday midida way ka fog tahay isaga. Aaron ayaa hadda kaamiradiisa la soo baxaya si uu u sharaxo waxa gaaray isaga, isagoo sheegaya in ay tahay fursaddii ugu dambeysay ee noloshiisa ee uuna kusoo duubayo muuqaalkan. wuxuuna kaamirada ku duubayaa si uu qofkii hela u ogeysiiyo waalidkiis. wuxuuna kaamirada ku dhex sheegay intuu fiidiyowga socday adreeska meesha laga helayo waalidkiis iyo wax walba oo macluumaad oo lagala xiriiri karo waalidkiisa. habeenkii ayaa socda. hadda Aaron wuxuu isku dayayaa inuu seexdo, wuxuuna dareemayaa qabow aad u daran. balse Aaron wuxuu isku dayayaa inuu ku kuftamo kaamiradiisa si uu naftiisa kalsooni badan u siiyo. runtii waa nin aad u cajiib ah, mana lumin weli kalsoonida iyo rajada naftiisa uu ka qabo. subaxii Isniinta ayaa la gaaray. Aaron wuxuu isticmaalayaa si tartiib ah biyihiisa, balse nasiib xumo hadda Aaron naftiisa ayaa wuxuu ku weelinayaa inuu meeshan ka badbaado. wuxuuna la soo baxayaa xarigiisa boorsada ugu jiray, wuxuuna isku dayayaa inuu qalbiyada boorsidiisa ku jira isticmaalo. hadda Aaron xarig ayuu u qabsaday meel fiican, wuxuuna isku dayayaa inuu cabaar seexdo, balse xanuun aad u badan ayuu dareemayaa. Aaron ayaa waxa uu soo xasuusanayaa fariin hooyadiis u dhaaftay oo asaga iska indhatirayay in badan iyo marar badan oo koolka uu ku dhageysan jiray. runtii ayada waxa ay doonaysay inay isaga la hadasho, balse wax jawaab soo siin ayada fariimaheedan uguma soo jawaabin. sidoo kale mar ay familka kale aabihiis iyo walaashiis ay soo wacayeen, isagana muusan la hadlin oo fariimahooda kama soo jawaabin. balse hadda dhammaan waalidkiisa uu ka raaligelinaya isaga oo fiideo u duubayo, maadaama ay tahay daqiiqadiisii nolosha ugu dambeeyey xaalad xun uu ku jiro. waxa uuna ku sheegayaa kaamiradiisa inuu duubayo ilaa ay nafta ka baxayso ma ay kusii jirayso, inuusan daynin kaamirada uu duubayo. sidoo kale wuxuu soo xasuusanaya isaga iyo gabar jacayl ka dhexeeyay waqti ay soo wada qaateen, balse gabadha filimka magaceeda laguma xusin. gabadhaas waqti badan soo wada qaateen uu soo xasuusanaya, balse ay iyada kala tageen oo waxay u sheegtay inuu weligii saas keligiis u ahaan doono. hadda waxaa la gaaray subaxii Arbacada ah. Aaron ayaa hadda wuxuu u arkaa duka subax walba korkiisa maraya, wuxuuna bilaabay inuu la hadlo. Aaron aad ayay uga yaraadeen biyihii oo ay ka dhammaadeen gabi ahaanba. wuxuuna galay riyo aad u xanuun badan, isagoo ku riyoonaya in ay daadad biyo ah u soo galeen meesha uu ku sugnaa oo asaga iyo dhagaxiisaba daadka qaadaya. Aaron ayaa kusii riyoonaya isagoo aadi doona guri meeshaas ka dhawaa oo ay ku sugnayd saaxiibtiisa, balse waxaasoo dhan riyo ayay ahaayeen. Aaron ayaa isla markaas hurdada ka toosay isagoo aad u qaylinaya, laakiin arrinta dhan waxay ahayd riyo un. Aaron ayaa hadda naftiisa wax u sheegaya inuu quustay meeshaana aysan jirin cid ka badbaadin doonta. Aaron ayaa hadda sawirinaya qoyskiisii isagoo u sheegaya inuu aad u xiiseynayo, balse daqiiqadihii noloshiisa ugu dambeysay ayuu ku jiraa. Aaron hadduusan tilaabo qaadina meeshan kama badbaadayo. isagoo kaftamaya ayuu ku dhahayaa waxay ahayd inaan u sheego qof uun meesha aan aadayo, sababtoo ah xilligan waa iga warhayn lahaayeen. maadaama ay tahay maanta maalin Arbaca, waxa uu rajeynaya hadduu booskiisa ka waayo goobta shaqada inuu wargelin doono booliska, balse boolisku waxay raadin doonaan 24 hours. Aaronna noloshiisa 24 hours meeshan kuna jirin karo. intaas kadib Aaron waxa uu rajeynayaa inuu rajabeelay, inuuna u baahan yahay biyo maadaama ay biyihiisii maalintii hore ka dhammaadeen. markaas ayuu bilaabay Aaron inuu ku kaadiyo caagiisa si uu oonka iskaga baabi'iyo, maadaama uusan haysan wax biyo ah. alla maxay xanuun tahay, waa wax laga yaqyaqsado. Aaron ayaa ah mid aad u daalan, tamartiisa ayaa hoos u sii dhacaysa mararka ka dambeysa. Aaron ayaa hadda derbiga agtiisa ku qoraya dhalashada noloshiisa iyo dhimashada noloshiisa, isagoo u sheegaya maanta inay ugu dambeyso noloshiisa. wuxuuna u sheegayaa naftiisa inay waxaan u qornaayeen lana qoray maalinkii uu dhalanayay, wuxuuna jeclaan jiray inuu mar walba keli ahaado. ugu dambeyn wuxuu soo xasuusanayaa wiilkiisa mustaqbalka si uu ugu noqon lahaa aabba aad u wanaagsan. nasiib xumo hadda wuxuu rajeynayaa inay wax walba dhammaadeen. intaas kadib Aaron ayaa go'aan qaatay, wuxuuna isku dayayaa in uu gooyo gacantiisa, wuxuuna rajeynayaa in ay tahay xalka keliya ee naftiisa ku badbaadi karo. gacanta ayuu iska xiray qaybta dambe, wuxuuna isku dayayaa midi yar uu haystay inuu ku gooyo gacanta qaybta hore, laakiin nasiib xumo midida way awoodi weysay in ay goyso gacanta. intaas kadib gacantiisa ayuu ku riixayaa derbiga si uu u jilciyo laftiisa, wuxuuna go'aansanayaa marka hore inuu jibiyo lafta si uu kadib midida ugu gooyo gacantiisa. aakhirkiina gacantiisa ayuu si xoog ah midi ugu dhiftay oo lafta ayuu geeyey. dib wuxuu isku dayaa inuu gacanta maroojiyo si uu lafta u jibiyo, balse uu u suurtageli weysay inuu jibiyo lafta. intaas kadib wuxuu adeegsanayaa midida afkeeda si uu u gooyo seedaha kadibna lafta u jibiyo. inta dib wuxuu adeegsanaya wuxuu awood u lahaa si uu u gooyo gacantiisa.
Aaron ayaa ficilka uu samaynayo ku duubaya kaamiradiisa, balse goobta dhan waxa ay noqotay meel wada dhiig ah. Aaron ayaa wuxuu isku dayayaa inuu naftiisa ku qanciyo in uusan sii noolaan doonin hadduusan gacanta goynin. Ugu dambeyn 2 ilaa 4 daqiiqo oo uu goynayay gacantiisa wax uu ku guuleystay inuu gooyo gacantiisa, dib ayuuna u hantanturoonaya. Hadda Aaron waa xor oo uu gooyay gacantiisa. Asaga waa mid aad u dhiig baxaya, gacantiisana dhiig aad u badan ayaa ka socda, balse wax uu ku duubaya gacantiisa mara u watay. Aaron ayaa hadda wax uu ka soo baxay buurtii aadka u weyneed oo uu ku jiray, wuxuuna arkayaa biyo agtiisa ah, wuxuuna isku tuurayaa biyaha maxaa yeelay isaga waa mid aad u ooman. Aaron ayaa hadda arkaya qoys ka kooban 3 qof, balse wuxuu isku dayayaa inuu aad ugu yeero intuu awood leeyahay. Iyaga oo ordaya ayaa hadda u imaadeen, waxayna siiyeen biyo aad u macaan. balse Aaron ayaa u eg mid miyir daboolmi raba. Aaron hadda nasiib wanaag waxa uu imaaday helicopter, taas oo ah mid asaga caawinaysa si ay u geyso isbitaal. Aaron ayaa hadda helicopter ka raacaya. Dhammaadka filimka Aaron waxaanu aragnaa inuu ku dabalanayo meel biyo ah. Aaron ayaa hadda biyaha ka soo baxaya, wuxuuna arkayaa qoyskiisa oo dhan. Waxaan aragnaa Aaron Hiddleston iyo xaaskiisa Jellica oo ku fadhiya sariir aad u qurux badan, balse shaashada ayaa sheegaysa inuu Aaron riyadiisa u rumowday, taasoo ah inuu dhalayo wiilkii uu ku riyoon jiray. May 2012 ayaa ay dhaleen cunugkoodii ugu horreeyay, waxaana lagu magacaabaa Leon. Aaron ayaa hadda filimkiisa meeshan ku soo dhamaaday. daawadayaal, waa ku mahadsantihiin daawashadiina muuqaalkan.